wanaag badan baa naga dhaxeeya wadanka Soomaaliya wanaag fiican arrimo fiican baa naga dhaxeeyaan arrinkan yar oo muhiimka hadda la bumbuuninayo ma rabno inuu wanaagii naga dhaxeeyay ilaa waqtigii doorasho ilaa waqtigii xornimada aan helno labada wadan iyo labada dad inay lagu ciyaaro marka waxaan rabnaa nabadgelyo anigana maadaama aan ahay nin Soomaali ah awalan waxaan ahay horta nin Kenyan jinsi ahaan iyo dhiig ahaan Soomaali baan Soomaali meelay ka timidbo Soomaalida Ethiopia Soomaalida Djibouti Soomaalida Soomaaliya Soomaalida qurbaha joogan wadankan ana madax u ah qorana waan sheegay wadankan Soomaali intay ku haystaan wadan kale ay ku haystaan malaha adduunka Uganda bay ku haysanin Ethiopia bay ku haysanin Djibouti bay ku haysanin waa sababtana waxa weeyo madaxda iyo bulshada ani aan kamid ah ay ku leeyihiin wadanka Kenya wasiirada Soomaaliya carruurtooda wadanka degan madaxweynayaashii kuwii soo maray ku hada joogan xasaskooda degan intaasoo saraan haynay Soomaali qaxooti dhowr iyo 30 sano iyo marti noo hayeen marka annaka waxaan nahay gurigii labaad ee ummadda Soomaaliya ama dawladda u shaqeyso ama dhaqaalaha u sameeyso ganacsi ha tahaato ama siyaasi ha ahaato marka guriga Kenya waa gurigiini marka arrinkan yarna waa la xalin marka yaa la bumbuurinin laakiin markii miiska la fariisto ani miiska waxa uu soo fariisanaya anigoo nin Soomaali ah oo kamid ah dawladda madaxweyne Uhuru Kenyatta oo baarlamaanka Kenya uu hogaamiye u ah marka oo waliba ninkii saddexaad xagga siyaasiga marka ani waxaan noqonayaa diyaar baan u yahay Soomaalida iga raali ahaato ma ogolaanay hal cidi ama hal yar oo dhul ay leedahay wadanka Kenya ama bad ahaado ama dhulka ahaado inay wadan kale ama Soomaaliya ama Ethiopia ama Djibouti ama South Sudan inay qaadato sidaasna waa sidoo sameeyay lahaa ninka Mustafa ka madaxweynaha kalinka shanaad markuu mid soo fariisto wuxuu soo fariisanaa soo nin Soomaali ah laakiin Ethiopian u dhashay wadanka Ethiopia madaxweynaha Djibouti markuu asagana miiska soo fariisto wuxuu soo fariisanaa asagoo madaxweynaha Djibouti marka maalintii waxaan nahay wadamada aan u dhalanay habeenkina waxaan noqonaynaa niman Soomaali ah ani madaxweyne Farmaajo iyo kuwa kale telefoonada isku diraynaa shahwaan la cabi karnaa laakiin maalintii ogaan xiranno dharkii iyo awoodii iyo wadankan ka dhalanay marka Soomaalida waxaan leeyahay nin madax oo Soomaali ah oo waliba wadani ah oo wadanka Kenya u dhashay yaan ahay marka sidii walaalkay Mustafa uu difaaci lahaa dawladda iyo dhulka Ethiopia iyo madaxweyne magaciisa Umar madaxweyne Djibouti Umar Geele marka waxaan leeyahay arrinkan waa arrin xasaasi ma labada wadan way heshiinayeen annakana waxaan rabnaa inuu si fiican heshiis ku dhamaado